warbixin ku saabsan xogta hay'adda cuntada adduunka iyo beeraha ee FAO ayaa muujisay in dalal dhowr ah oo ku yaal Afrika iyo Bariga Dhexe ay hogaaminayaan tirada geela caalamka iyadoo geelu weli yahay lafdhabarta nololeed dhaqaale iyo dhaqan ee bulshooyin ballaaran sida xogtu tilmaamayso. Chad ayaa kaalinta koowaad kaga jirta dalal kale geela ugu badan caalamka iyadoo tirada geela dalka Chad uu ku dhow yahay 10.7 milyan. Kaalinta labaad waxaa ku xiga dalka Soomaaliya oo leh qiyaastii 7.5 milyan, taasoo markale cadeynaysa doorka muhiimka ah ee xoolo dhaqashada gaar ahaan geela ay ku leedahay dhaqaalaha iyo nolol maalmeedka dalka. Warbixintu waxay intaas ku dartay in Suudaan ay leedahay ku dhawaad 4.8 milyan halka dalka Kenya geeliisu uu gaadhay 4.3 milyan. Saudi Arabia ayaa lagu qiyaasay 2.1 milyan, waxaana ku xiga dalka Niger oo leh 1.9 milyan iyo Ethiopia oo geela ku nool uu gaadhayo 1.8 milyan. Sidoo kale tirada geela dalka Mauritania ayaa gaadhaysa 1.5 milyan. Mali waxay haysataa geel tiradiisa lagu qiyaasay 1.3 milyan iyo dalka Pakistan oo leh 1.1 milyan. waana 10ka dal ee ugu geela badan caalamka. Khubaradu waxay tilmaameen in korarka ama joogtaynta tirada geela ay la xiriidho isbeddelka cimilada maadaama geelu yahay xoolaha ugu adkaysiga badan abaarta iyo kuleylka isla markaana bixiya caano, hilib, gaadiid iyo dakhli. Dalalka ku jira liiskan ayaa ka faa'iideysta geela si ay u xoojiyaan sugnaanta cunnada, shaqo abuurka miyiga iyo ganacsiga xoolaha ee gudaha iyo dibadda. Warbixintan ayaa mar kale muujisay muhiimadda istiraatiijiga ah ee geela ee mustaqbalka cunnada iyo la qabsiga isbeddelka cimilada gaar ahaan Afrika iyo gobolka saaxilka.